markaa habar jeclo ku maagaysaan ku hanjabaysaan horta waxaa ogaataan marinkiina waa seegteen wax saydu ku jirabaa ayaa soo tuurteen waxsaanu idin leenahay walaalayaalow habar jeclo cidlama taagna cid bay la dhalatay arrinkana inaad saan uga badheedhaan bay ahaydoo markaa kumadiyo kable lax marayseen halkuu leeyana maraysaan bay ahayd onaad tahdaan isaaqow ila waa laydin fahmayey inaad warwareegtaan may hayn waxaa kalaad tidhaahdeen dagaalka hore kumaanaan jirin been baa ka sheegteen waa ku jirteen xaqiiqadii baa la hayaa dadku wuu iswada dhalay ciidan weliba maalinta soo ambabaxayey ayaa la ogaa ka yucub ka soo ambabaxaya ka wardheer ka soo ambabaxaya ka caada ka soo ambabaxayaba siiba suldaan cabdirashiid doolale oon agu taariikhdiisa wax ka hayo iyo reerkooda iyo deegaankooda nin makaaheel oo aan xuduud leenay ayaan la hadlayaa ayaa la ogaa waa ku jirteen laakiin dadka reer Soomaaliland oo midaysan baa xadkooda soo xidhaya yuucada waxa la tegayaa iyadoo dhulbahanta uu ka mid yahay dadka soo xidhaya xadka laana dalku wax ku leeyahay ninka aan sidaa qabinow dhulbahanta ma waxa la dhaafinayaa yuucada marka xadka la soo xidhayo lama dhaafin karo reer awdal waa dad wanaagsan Soomaaliland way ogol yihiin dad fudud maaha dad si yar dagaal isaga gala maaha waa dad dantooda garanaya waa dad qabow waa dad Soomaaliland tacab soo geliyey waa dad imika u diyaara uga biqi maayo wax Soomaaliland dhibaato gaarsiinaya iyadoo lagu kalifo mooyaane inay sameeyaan waata koobaade waxaan ku horeysiinayaa niman sulaadiina oo waayeela oo ayaan dhawta ka hadlayay media joogay dawladda deegaanka aan filayo meeshii joogay inay jigjiga tahay oo nin suldaana oo cabdirashiid doona rafle oo nin weyn oo odayo oo maaragtay sandaladoodu dadka Soomaalida taariikh ku dhexlahayd iyo niman kale oo la fadhiyay oo maaragtay ugaasiyay madax dhaqameed nimanka waxaan doonayaa inaan iraahdo kelmad toosina ama wixii ay ka hadlayeen wixii u jawaabay munaasib ku ah odayaasha waxaan leeyahay marka hore anigoo aad idin ixtiraamaya waayeelka iyo madax dhaqameedku wuxuu u igmayay nabadda wuxuu u igmayay wanaagga wuxuu ka hortagaa colaadaha wuxuu baqtiyaa markay yimaadaan ma kiciyo mana hanjabo dadkana ma kala saaro cidna ma taargid gareeyo waxa la wixii fidma ah madax dhaqameedku waxay u igmayeen inay damiyaan inaad tidhaahdaan colaad haddaad dareenteen in colaad la wado markaasaanay u waraysateen xog dhaba heshaan inaad tidhaahdaan hala joojiyo xaq baa u lahaydeen waana shaqadiinnu u igmaneen madax dhaqameed oo dhan laakiin walaalayaaloo sidaa u hadasheen may ahayn sidii madax dhaqameed lagu yaqaanay si lillaahiyana may ahayn waxay ahayd si duurxul colaadeeda waxaad tidhaahdeen colaadda hala joojiyo oo waxaanu leenahay reerka habar jeclo la yidhaa joojiyo colaadda idinkaa wadee haddaad joojin weydaanna wakaabladeeg haddaad joojin weydaanna sidii tii hore gacmaha ka laaban maynee haddaannu ku madan nahay waannu soo geli doonnaa waxaa la hadasheen habar jeclo oo taargidgarayseen waxaana sheegateen kumade intay isu jiraanna waa garanaysaan iyo kablalax oo dee daarood gala nin mareexana beriyaa la yidhi weligeyba kabiya lax waan maqlaya waxna igamay qaadin hortaa markaa kumade ku hadlayseen ee aad dadka walaalaha ee ehelka ah ee fidmadu ka dhex dhacday ee aanaan raalliyada ka ahayn habar jeclana raalli ka ahayn garxajisna raalli ka ahayn reersha xisaaqna raalli ka ahayn ee maamulka siyaasiga ah ka dhex dhacday iyo ciddii ka soo horjeeday markaa habar jeclo ku maagaysaan ku hanjabaysaan horta waxaa ogaataan marinkiina waa seegteen wax saydu ku jirabaa ayaa soo tuurteen waxsaanu idin leenahay walaalayaalow habar jeclo cidlama taagna cid bay la dhalatay arrinkana inaad saan uga badheedhaan bay ahaydoo markaa kumadiyo kable lax marayseen halkuu leeyana maraysaan bay ahayd onaad tahdaan isaaqow
ila waa laydin fahmayey inaa warwareegtaan ma ahayn waxaa kalaad tidhaahdeen dagaalka hore kumaanaan jirin been baa ka sheegteen waa ku jirteen xaqiiqadii baa la hayaa dadku wuu iswada dhalay ciidan weliba maalinta soo ambabaxayey ayaa la ogaa ka yucub ka soo ambabaxaya ka wardheer ka soo ambabaxaya ka caada ka soo ambabaxayaba siiba suldaan cabdirashiid doonale oon agu taariikhdiisa wax ka hayo iyo reerkooda iyo deegaankooda nin makaaheel oo aan xuduud leenay ayaan la hadlayaa ayaa la ogaa waa ku jirteen waana idin arkayn laakiin anagu colaadda amaanaan doonayn gaar ahaan beesha garxajisaalkeediina waa ogeydeen isaaq ku jirayna ma jirinoo shicibi maamul aanaan ku raacsanayn dagaalka laascanood ka dhacay sidii loo maamulay iyo dadkii reer laascanood bay isdilaayey oo cid waloo kaleba kala soo qayb gashay oo looga faa'iidaystay isku dhaca xukuumaddii iyo dadkeedii halkaa waxaan leeyahay horena waa ugu jirteen haddana waa doonaysaan inaa gashaane iska daaya annagu nabad baanu ugu baaqaynaa cid walba walaalaha iyo reer somalilan aan isku nahay dhulbahantay reer sool baanu nabad ugu baaqaynaa nabad baanu haynaa wada hadal iyo walaalnimaanu haynaa ehelnimo iyo wada daaq iyo isdhexmar baanu haynaa kaanu haynaabay habar jecla haysaa anaa afkiisa ku hadlaya waxaan idinka idin leeyahay arrinkaa imika maalintii luuta ku hadasheen dhulku idinkaga dhacay maaha arrinkii madax dhaqameedkee raaligelin ka bixiya dub ugu noqda waxaan leeyahay taay qoladaa intaasaan leeyahay arrinta sool iyo dadka reer sool ee dhulbahantee waa dad reer somalilanah waa dadaanu walaalnahay waa dadaanu ehelnahay oodii ab ka dhow juqraafiya dhul baanu isku raacnaa dhiig iyo dhaqan baa naga dhexeeya daaq iyo dal baa naga dhexeeya shaydaan iyo talaxumaa adeegtay fid maa dhacday waannu ka xunnay mid dambe oo dhacdana ilaahay ka baryi mayno diyaarna uma nihin cid kastoo waddana waannu ka soo hor jeednaa hadday iyaga yihiin waannu ka soo hor jeednaa oo waxaanu leenahay wanaag ku soo noqda hadday xukuumadda tahay waannu ka soo hor jeednaa waxaanu leenahay joojiya waxaanu leenahay wixii dhacay dhacee wixii dhintayna dhintee dadkuna kala maarmi maayo wixii dambe wada hadal iyo wanaag iyo walaalnimo hadday beelaha iyo madax dhaqameedka tahay iyo hadday xukuumadda iyo maamulka dhisateen tahayba ha lagaga wada xaajoodo waxaan maqlaa dad meelahan dareen hadal aan meel gaadhsiisnayn muujinaya dagaal baa la qaadayaa dhallinyaro la soo sawiraayo xukuumaddu inay raalli ka tahaad muddaa waxaa lagu celceliyaa xadkaanu soo xidhaynaa dadka hadalladaa leh cid kastaba ha ahaadaane oo uu fasal cali waraabe u dambeeyaan maqlaayey oan dhegaystay waxaan leeyahay xadka la soo xidhaya ee somalilan waa kii miyaanu kii oocad ahayn miyaanu kii buuro wada lahayn marka xadkaa la soo xidhaayo ee laleeya dagaal baynu qaadaynaa oo xadkaasaa la soo xidhayaa dhulbahanta waa ayo ma kuwa xadka wax ka soo xidhayabaa ma somalilan baa ma kuwa lala dagaalamaya xadka laga soo xidhayaabaa bal dadkaana waxaan leeyahay iswaafajiya waxaa ku hadlaysaan iyo wuxuu waddanku yahay diyaar baanu ahay xadka somalilan in la soo xidho iyo somalilan qarinimadeeda iyo midnimadeedu inay istaagto nin kasta oo wanaag doonayo ila mida oo madax dhaqameeda ama siyaasi oo wanaag doonayana wuu rabaa laakiin dadka reer somalilan oo midaysan baa xadkooda soo xidhaya yoocada waxaa la tegayaa iyadoo dhulbahanta uu ka mid yahay dadka soo xidhaya xadka la'anna dalkuu wax ku leeyahay ninka aan sidaa qabinow dhulbahanta ma waxaa la dhaafinayaa yoocada marka xadka la soo xidhayo lama dhaafin karo taana waxaan leeyahay ciddii colaad sanqadheedu wadaay maanta dalku colaadu ma baahna xukuumaddan u sheegayaa madaxweynahan u sheegayaa waxaan aad uga xumay hadalkii madaxweynaha maalintii dhoweytay isagoona 40 cisho hadlin jabkii 25 August inuu dhacay ciidankeena kadib inuu ku daray sidii dadku doonayay horta marka hore inaan u hadal mar labaad inuu ku daray inuu waddanku dagaal ku jiro waxaan leeyahay madaxweyne waddanku dagaal buu ka soo baxay dagaal aan si wanaagsan loo maamulin oo raggiinii hoggaanka hayay aan la ciirtay oo aynu ku jabnay oo dhaawac inuu gaadhay buu ka soo baxay innaga iyo dadkeennii isdilay oo la isu keen adeegsaday oo siyaasaddii laynagaga badiyey baa inagu dhacday 200 300 oo nin baa maanta laynaga hayaa saraakiisheenni ku jiraan inaad haddana maanta tahdo waddanku dagaal buu ku jiraa looma baahnayn
waxaynu dagaalka hore gallay dadkeennoon midaysnayn khilaaf siyaasadeedoo jira dadkoo qaybsan cidna kama qarsoona jabka keentayna waa taa maantana weli dadkii maad midayn ciidankiina sooma kaban la tashina maad samayn wixii lagu heshiiyey ee ama distoor ahaa ama xeer ahaana siday u ahaayeen ee la doonayay in lagu dhaqmo dadka loogu hogaamiyo adiga xukuumaddaadu toona umaydaan fulin idin maagi maayo laakiin run baan sheegayaa in dalkeenna iyo dadkeennu wanaagsanaado oo madaxdeennu ay sharciga ku dhaqanto ayaan doonayaa waxaa jira laba nas oo diiniya labadaa nasee diiniga a ninka ulul amriga hadduu ka baydho laa samca walaa daaca la adeeci maayo amirna lagu odhan maayo madaxweynena lagu odhan maayo labadu waxa weeye almuslimuuna calaa shuruudihim baa rasuulku sal allah alih wasalam muslimiintu waxa ku fulaya wixii ay ku shuruutameen waxa lagu shuruutamay waa wax kastoo lagu heshiiyo ama mid islaax lagu galay ha noqoto oo ta imika inuugu dambaysaya oon rajada ka qabnay in dadku isugu soo dhowaado ama tii dastoorka iyo xeerarka ku qorreed ha noqoto wixii dadku ku heshiiyey in la fuliyo oo madaxdu ay fuliso ayaa shacabka ay xaq ugu leedahay in la adeeco qodobka labaad waa aayad qur'aana ilaahay baa rasuulkiisa ku yidhi ilaahay dunida maamulayey ayaa rasuulkiisii waxii uu ku soo degaayey ee uu malaa'igta ugu gargaari karaya cid kastoo ka hor timaada wuxuu ku yidhi washaawirhum fi lamri fa idaa casamta fatawakal cala allah taasuna waa wadatashigiina madaxweynaadiya xukuumaddaadu waa ka tagteena ku soo noqda dadka la tashada madax dhaqameedka la tashada aqoon-yahanka la tashada colaad iyo nabadba wixii aynu gelayno dadkeennoo midaysanay ha galo laakiin innagoo shalayta soo jabnay in maantana dadkeennii oo aanadaan midayn waynu isoognahay waa yeelka iyo sulaadiinta kulamadeenni u dambeeyey markii loo ababaxayay colaaddii ceelaf weyn iyo calisaahid madaxweyne waxaanu kaa codsannay wax walba waxay nooga himsan inaad shir qabato oo dadka isu keento waynu gacmaha isqabsanno dabeetana wixii dhexdeenna aanaynu u baxno cadowgeennanu ka naxo umaad degdegin oo maad fulin may dhicin welina way taagan tahay waxaan leeyahay sool arrinteeda madaxweyne inaynu dagaal ku qaadno waxa ka horreeya 3 shay waa mida waxa ka horreeya horta marka u horreysa in dadkeenna la mideeyo oo la isku kalsoonaado waa mar labaad in ciidankeenni la dhiso kalsoonidiisii la soo celiyo wixii uu ku jabayna looga warramay ogaadaan waa mar saddexaade waa in nabad la doono saddexdaasba dagaal iyo colaad way ka horreeyaan soolna waxay gacanteena ku soo noqonaysaa markaynu dadka shicibka ah ee reer Soomaaliland ee reer Soole dhulbahantay kalsooni kala helo ee inuu iscafinayno isu saamaxno ee dagaalka aynu qaadayno ee cid kastoo kale oo cadowga hadday Puntland tahay hadday Soomaaliya tahay aynu kaga hortagayno reer Soomaaliland ay xabadda wada ridayaan laakiin intay reer Soomaaliland xabadda iskala soo horjeedaan xadna la soo xiri maayo midnimana la heli maayo taasuna waa tadhexdeena gobolka awdal hadallaa ka jiray hugun baa jira anigu godobka awdal waxaan qabaa way cabanayaan cabashadaana waxaan qabaa inay xaq u leeyihiin nin waloo caqli bilowna wuxuu qabaa inay xaq u leeyihiin reer awdal waa dad wanaagsan Soomaaliland way ogol yihiin dad fudud maaha dad si yar dagaal isaga gala maaha waa dad dantooda garanaya waa dad qabow waa dad Soomaaliland tacab soo geliyey waa dad imika u diyaara uga biqi maayo wax Soomaaliland dhibaato gaarsiinaya iyadoo lagu kalifo mooyaane inay sameeyaan waxaan se leeyahay war way cabanayaan oo saami qaybsigay ka cabanayaan oo xilalka Soomaaliland laga hayaabay ka cabanayaan xaq baanay u leeyihiin waxaanan qirayaa anigu inay ka maqantay waxay ka cabanayaan hoos loo eego muwaadiniin weeyaan martiyay noqon muwaadiniin weeyay marti noqon waan gudagelayaa waan sababaynayaa hal tusaale xilalka saami qaybsiga dawladda Soomaaliland laga hayo kaambaneedka wasaaradaha hay'adaha madaxa bannaan taliyayaasha ciidamada meel kasta oo dad laga shaqaaleyn karo oo reerku isku soo taagi karo reer Sool waxay ka joogaan waxaan leeyahay reer awdal waxay ka joogaan maalgashiga iyo qorsheynta iyo ganacsiga oo sacado ay musasi gaar u saaxiib yihiin leesleeyo waliba waa lagu sadburi xaq uma ladee وصدح وسرود اللي تدعي فوي باري باتشرة وعافمات كاتشرة ومالية داتشرته وأرماء قدها تشرة
وحنانada xoolaha iyo kalluumaysiga jira oo waxbarashada jirta maxay inta laba kamid u waayeen maxaa isaaq ama raas ka siimida oo madaxweynaha leh inta iyo in ka badan buu leeyahay dadku cadaalad buu baahan yahay dadku cadaalad buu baahan yahay in la ilaa madaxweyne ku xigeen baa leedin madaxweyne ku xigeen wuxuu qabto wala yaqaan way leeyihiin laakiin waxa kale ee dalku leeyahay hay'ad madax banaan malaa mar banaan ugu intaan garanayo hadaan qaldanayn ee hay'adda shaqaalaha inuu soo maray inta hay'ad madax banaan jirtana waynu garanaynaa ciidamada jira jarankaas lugti leeyahay muxuu shaqaaleeyaa qof baan qado qaadi karin maxaa kuwa muhiimka wax looga sii waayay xaq bay u leeyihiin waa muwaadiniin tay tabanayaan waa taa waan la qabnaa waxaan leeyahay madaxweyne saddex shay baa lagaaga baahan yahay dadku wuxuu ku heshiiyay inaad fuliso hadday islaax tahay hadday xeer tahayba inaad dadka la tashato iyo inaad cadaalad ku dhaqdo adiga iyo ka kaa dambeeyay iyo mid kastoo iman doona Soomaaliland haddaan sidaa la yeelin tabasho la waay maayo inta tabashi jirtana dadku isu calool samaan maayo waxaan ku gabagabeynayaa kaga baxaya dadka la ilaa reer Shaxsaxaaq waa yeelkooda waxaan leeyahay maanta dalkeenu halku maraayo waa arkaysaan haddaanu reer Shaxsaxaaq tale degdega gaarina dadka doonayaan wax hagaagin baa waxay yiraahdaan ma dawlad baynu noqonay maxaa reer lagu shurayaa nafa haddaan reer dhisan oo wanaagsan oo isku xidhan oo manfac iyo colaad iyo nabadba ka wada tashanaya jirin oo dawladdu toosinaya taageeraya jirin dawladna jirmayso dawladdu shacabkay ka timi hadii shacabku burburiyay dawladdu halkay ka taagnaanaysaa waxaan leeyahay degdeg ha la isugu yimaado halka maanta waddankeenu maraya ha laga tashado colaad iyo nabadba dadkoo mid ah wixii la qabanaya ha la qabto intaasaan ku soo koobaya hadalkaygii aad baa u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته